ama ilaahay ubad siiyey especially gabadh dhalay oon waqti la qaada cid walba ubadkaa ka qiimo badan dad waxaa jira malaayiin dollar ku raadinay in ay ubad ay koriyaan ay helaan marka qofka ilaahay ku irsaaqay oon weynaysan oo wanaagsan especially gabdhaha raxmad kaliya weeye ilaahay horta ku risaaqay gabar wax loo soo baray hooyo Soomaaliyeed u soo dhibaatootay dib wax ku soo bartay mas'uuliyadeedii intuu la wareegay meel cilla uga tagay ya adduun iyo aakhiraba ya ilaahay wuu kula xisaabtamaya maxaa aabba gabadhiisii dayacay ya waxa weeye gabar haddii aad xanaanaysid eed si fiican u korisid jannadii ayaad ku gelaysaa taas xadiis bay ahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqosho wanaagsan asxaabtayda waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin kuwii cusub iyo kuwii hore joogayba inaan barnaamij yar baan ku darsanayaa aan ka hadlo wiil walaalkeeya oo social media caan ku ah oo la yidhaha Xabiib Faarax ayaa wuxuu soo dhigay adiga ka hooyo ahaan waxbaa ku soo jiidanaya ilmihiisa uuna 6 sano arag oo hooyadood haysay oo hooyadood soo korisay waxyaalihii uu ka hadlay waa waxyaalo reality oo bulshadeena caam ku ah aabba Soomaaliyeed inuu hooyada ilmaha ku dayaco dal iyo dabadba kuwa qurbaha jooga iyo kuwa dalkii joogaba aabba Soomaaliyeed haday hooyada kala tagaan ilmaha wuu ku dayacaa hooyada wuxuu yiri hooyooyinka way dhiban yihiin ilmahana waan ku dayacnaa waa runtiis aabba Soomaaliyeed ilmaha wuu nagu dayacay hooyada hadduu furo ilmaha waa ku dayacaa waxaa sii dheeriya asagoo ku dayacay oon soo korsan markuu maanta yiraahdo maanta dhaqaale uu ka roon yahay wuu ku amar taagleeyaa hooyada waxaa laga yaabaa maanta hooyadaas inay dalkii joogto qurbo aabbihii jooga ilmihii ka wato maantuu ka wato ayadoo soo korsatay ayagoo dad waaweyn u tagay maantuu ka wato inuu ku amar taagleeyo ku xumeeyo ilmaha ku dhibaateeyo fiir waa mar labaad dhibaato labaad hooyooyinku aad bay u samraan ayadoo shala soo korisay maanta siinaysa intay soo korisay markay siiso uu qaatayna mar labaad buu ku xumeeyaa oo ku dhibaa ilmihii qaarkood ayagoo mas'uuliyadii shala dayacay bay markay iyagoo waaweyn ilmihii la wareegaan bay haddana mar labaad dayacaan oo ilmahoodii dariiqa dhigaan oo uga tagaan ayagoo hooyadood ka waday ayagoo hooyadood iyo noloshii hooyada la noolaayeen ka kaxeeyey meel cillaa geeyey bay dariiqa dhigaan kuwa qaar inay dhaleenba ma oga wiilka ku soo koray dayaca aabe oo hooyo la soo daalaa dhacday waxaa aaminay bulsho ka ahaan waxaa aaminay waxaan inay wax caadiye yihiin wiilkaas biri markuu gabar guursado tabtaas aabba la'aan markuu koro oo weynaado oo wax barto oo reer yeesho wadadii aabihiis shala marsiiyo marsiinaya marka tan ilmaha markii naagta la furo ilmaha la tuurayo hadda Soomaali ahaan waxay igu muuqataa inay noqonayso wax khayr la caadiya waxaan dhib lahayn wax oo iska caadiya inay noo noqoto baa moodaa oo jiilba jiil ka dhaxlay wiilkan aabiis hooyadiis markay kala tagaan waa tuuray hooyo soo korisay wiilkii waa koray gabar buu guursaday sidoo kale u tuuray fiir waa jaranjar marka jaranjartaas anagu waxaan qabaa hadda in aan wixii hore waa dhaceene aan ka hortagno oo joojino oo wiilasheena ka bilowno oo ilmo uuna dayicin uuna ka tagin ka aniga ka hooyo ahaan ma ii dhici doonto sida aan aaminsanahay wadadii aniga aan soo maray ee adkeed gabar wiilkayga guursadana uma quuro gabadhaydana uma quuro wiilkaygu inuu gabar ilmo u tuuro uma quuraayo anaa soo arkay xanuunkeeda hooyo ilmo inta loo tuuro lagu dayaco looga tago xanuunkeeda anaa arkay in aan gabar wiilkaygu intuu furo aan u quurana ilaahay ayaan ka magan galay uma quuro waan kula kala dhiman karaa wiilkayga mooyaane waxaan idin leeyahay aabbayaasha ilaahay wadada xaqaa ha tus xaquuqdan lagu leeyahay oo ay dayaceen
ilaahay maalin ha garan siiyo way dayaceen aabbayaasha soomaaliya xaquuqdii lagu lahaa way dayaceen sida wiilkaas walaalkeena uu sheegay xabiib 6 sano ka bacdi ayuu ilmihiisi la midoobay aabbayaal badanna inay ku daydaan aan rajaynayaa dareenkaas ay soo jiitay inaan idinla wadaago wixii aan ka qaba ka dareen ahaan aan aad baan u jeclaa saaxiib dhow baan ahayn anigii nadiiro aabba iyo gabar la dhalay kaliya maan ahayn laba qof oo saaxiibo aad isugu dhow baan ahayn locationkeeday siin jirtay meeshay joogtay meeshay marayso aad baan u jeclaa weligay ma seexan iyadoo maqan habeen ma seexan aad baan u jeclahay nolosheeda qayb iga tahay farxaddii igu bilaabatay markii ilaahay siiyey baan weli la noolahay waan ka xumahay waalidiinta haysta ama ilaahay ubad siiyey especially gabadh dhalay oon waqti la qaada cid walba ubadkaa ka qiimo badan dad waxaa jira malaayiin dollar ku raadinay in ay ubad ay koriyaan ay helaan marka qofkii ilaahay ku irsaaqay oon weynaysan oo wanaagsan especially gabdhaha raxmad kaliya weeye aad bay wanaagsan yihiin caruurteedu caruur aad iyo aad u wanaagsan aad u fiican dhaqanka waan baray diinta waan baray hooyo fiicanna way leeyihiin waa u mahad celinayaa naadi cadami 6 sano soo maqnaa inay caruurteeda iyadu haysay ka warhaysay waqti gelinaysay tarbiyaysay marka inay la joogtaa buu ma soo koobi kara dareenkayga anigu weligay dumarkaan la jiraa dumarka Soomaaliya waa dhiban yihiin keligooda caruurta koriya keligooda caruurta daryeela keligooda dhibtooda waa run dal iyo dibad dumarka Soomaaliyeed caruurta waa lagu dayacaa aabbayaasha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa ilaahay ka xishooda ilaahay u noqda waqti caruurtiina geliya haddaad ka maqantihiin iyo haddaad joogtaanba waxa weeye caruurtiina waa idiin baahan yihiin aniga markaan ka maqnay waa la hadlaa caruurtayda waa la sheekaystaa waxaan halkan ka hayaan u sheegaa inaan wax u tabcayo u shaqaynayo iyaga halkan u joogaan u sheegaa kama maqni markaan la joogayna dee garab igaashaan baan anaa u shaqaynay saacad walba waalidiinta jaanis u helay inay caruurtooda la joogaan waxaan dhihi lahaa ubadkiina waa laydinkula xisaabtamayaa waa laydin weydiinayaa maalinta qiyaame waxa weeyaan marxalad culus bay noqonaysaa qof ay ku gooni tahay ma jirto mas'uuliyadda ubadku ciyaalka loo soo jeesto waqti hal la geliyo muxuu ahaayay toolaha laga warhayo waxbarashadooda iyo noloshooda iyo tarbiyadooda haddii kale caruurtu dhibta ay la yimaadaan waalidka ayay saameynaysaa adayna sumcad darro iyo magac xumo ku tahay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamo walba oo Soomaali gabar walba oo Soomaaliyeed waxaan walaal leeyahay muxuu ahaayay toole wanaaga aad raggi ka weydeen ilaahay badal khayr qaba idinkaga dhigo dumarka Soomaaliyeed waa dad naxariis badan waa dad wanaag badan nimanka Soomaaliyeed oo dumarka markay furaan caruurta furaya waxaan leeyahay ilaahay ka xishooda oo haddaad maamooyinka aad tagtaan caruurtiina mas'uuliyadiina qaata oo $100 haddaa heshaan caruurta 50 u dira oo caruurta la hadla oo caruurta garab siiya oo caruurta waa raxmad oo caruurta iyaguunba wax idin taraya inagu waa wada duqoobaynaa waa gaboobaynaa iyagaynu u baahannahay naxariistooda iyo raxmadooda inay wax idin taraan aniga waxa weeyaan respect aan u hayaa gabar walba oo Soomaaliyeed dal iyo dibad qurbana waqti badan baan joogay Soomaaliya waan joogaa dhanka kale Nadiiro Xabiib Faarax oo dhankeedana la hadashay ayaa tiri waan jeclahay aabahay oo aabayaasha Soomaaliyeed waa aabaha ugu wanaagsan thank you horta sida noo soo dhaweysaan very lucky baan ahay inaan aabahay haysto horta aabahay wuu ku duwan yahay dad badan aabahay waa saaxiibkay waa best friendkay waa qofka ugu horeeya aan jeclaado isagii hooyaday so amaan badan bay ka leeyihiin aabahay iyo hooyaday very lucky baan ahay alxamdulillah